adigu waxyaabahii aan ka faa'iiday halkaas sano waxa aan ka xusi kara waxay tahay in maaragtay asxaab aan ka faa'iiday oo dad aan ka bartay YouTube-ka. haddii aad u baahan tahay adiga videos in lagu hagaajiyo oo aad ka mid tahay asxaabta ku xiran socdaalka dunida waa ila soo wadaagi kartaa sida ugu quruxda badan ugu wanaagsan aad jeclaan doonto ayaan kuugu habeynayaa haddii uu Ilaahay yiraahdo wax haddii ayadoo lagaaga waxaa ka mid ah xaqiiqdii maaragtay in aan dad hor fadhiisto saan waa idin fadhiyaa sax inaan dad hor fadhiisto سلام أصحاب السعودات الدنيا كسر وهذا قناة كيني السعودات الدنيا سيدو قلت ولكن محمد شودة ومركلة يو كلان تعصب كلان كان وأن كل فجورين السنة جورديني كواد قناة كينا السعودات الدنيا ما أنت وتاريخ كل تاجن تهاي 26 جولاي 2019 أما لحي لبعتك لوليو kanalka waa dhalashadiisii maanta waxaan idin dhigaa xaflad maanta waa ilaahay mahadii sanad hool adag ayay ahayd sanadka ilaahay baa si nabad oo guul noogu soo gudbiyay xaqiiqdii sanadka wuxuu ii ahaa sanad aad u mashquul badan sidaas ay tahana waxaan idin soo gudbiyay fiidiyoo ilaa xad macquul ah ilaa 68 fiidiyoo ayaa idin la wadaagay 8 kamid ah hadda laakiin waa private waxa public idin ah ilaa 60 fiidiyoo 8daana arrimo xasaasi oo jira aawadood baa private looga dhigay sidoo kale markaan ku leeyahay sanad mashquul badan buu ahaa xogaa yara faan iyo igama aha sababtoo ah waxaan ahaa mashquulkaygu wuxuu ahaa inaan ahaa arday jaamacadeed hadda jaamacadii alxamdulilah waa ii soo gabagabowday sidoo kaleeta inaan ahaa in u shaqeeya shirkad ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee dalka ka jira sidoo kale waxaa jirtay in maaragtay aan ahaa ninka ganacsada dhanka midin sheegaa mase waa idinka qaryaa dhanka online-ka oo trader baan ahay qofkii yaqaan uu yaqaanaa forex trading laakiin maaragtay aad dhankaas xoog umaana saareen tradingka laakiin waxbarashadeeda shaqadeeda iyo YouTube-kayga baa xoog saarayay YouTube-ku adigu haba xoog badan bayaana saarinay laakiin ilaahay mahadii ilaa fiidiyoo xad waa idin la wadaagay oo tabarteeda ahayd hadda fursado badan baa sanadkan helayaa sanadkiina labaad waxaad heli doontiin ilaa fiidiyoo kullaba jibaarma ama ka badan 120 ama ka badan oo fiidiyoos hadba sidii uu ilaahay qadaro weeye sidoo kale waxaa xusid mudan maanta inay listiga inoogu jirto 8200 iyo jarjar markaa ku leeyahay sababtoo ah hadda un bay tirada ku darsoomi kartaa ay kasii badan karaan 8200 iyo ka badan oo qof oo maanta oo subscribers baan haysanaa haddaan nahay reer socdaalka dunida waa ilaahay adigu mashquul kastaba iska jiray kanalkii kama ana seexan videos waan soo dhigayay sidaa ay tahana adigu intaana waxaa ii sii dheeraa maaragtay in oo mashaa'iq ama dad aan asxaab nahay oo macnaha videos khayriya hadday u baahdaan inay ila soo wadaagayeen aan videoska aan maaragtay u edit gareynayay adiga wax oo maaragtay money iyo wax charge oo iskaga baahan yahay beeraatay ma jirto haddii aad u baahan tahay adiga videos in lagu hagaajiyo oo aad ka mid tahay asxaabta ku xiran socdaalka dunida waa ila soo wadaagi kartaa sida ugu quruxda badan ugu wanaagsan aad jeclaan doonto ayaan kuugu habeynayaa haddii uu Ilaahay yiraahdo wax hantii ayadoo lagaaga rabinsa
lagaaga baahnayn. muhiimaddu waxay tahay videogu inuu video qeyriya oo wanaagiya oo ajir aan ku helayo inuu yahay. midda labaad waxay tahay intaa enough waa ka daaya, mid labaad ma jirto. dunida waxaa ku dhownahay waa maaragtay waa dhiirigelinaynaa waxyaaba badan baan ka faa'iidnay. waxaa maaragtay shoodha ka codsanahay inuu noo badiyo waxyaaba maaragtay dabciga lagu xud u hayo vlogyada bas barnaamijka fashilada muuqaalada vlogyada ma xataa dadka diiniga waa ku fiican adiga. alxamdulilah waa sababta loo furo kanaalka. haddaba bahda socdaalka dunida sanad wacan sanad guuro wacan cadaalaha kadib maxaa idin qalaa geel arilo maxaa idin qalaa xalaal meydka dhoon. horta haddii aan wax ka xuso aaladihii iyo technicianadii aan isticmaalayay markii aan idiin sameynayay videoskaas 68 video ama 60ga hadeertaan aad arki kartaan 60ka kan uu ku yahay 61. xaqiiqdii waxaan ku habeenayay aan ugu jeclaa Sony Vegas number 1 oo ka ahaa waxa aan kusoo habeeyay. labaad waxaa noqon karo Premiere Pro aan videoska qaar aan kusoo habeeyay. adiga saddexaad waxaa noqon karo KineMaster-ka oo maaragtay videoska qaar aan la aadayay. KineMaster waa macnaha mobile application waaye, halka kuwa kale ay ka yihiin computer app ama window app. sidee ahaataba waxaa kaleetoon isticmaalayay markii aan isticmaalayo muuqaal oo maaragtay aanan muuqaalkayga muuqanin sawiro iyo video dad kaleeto hagaagsan uu yahay. codka waan soo habeynaya, codkana waxaan ku habeynayay Adobe Audition 1.5. sidoo kaleeto waxaa xusid mudan application aan jeclahay laakiin video editor weyn aanan ahayn whiteboard ah. whiteboard waxaa la yiraahdaa applicationska maaragtay wax qorqoraayo, wax lagu qorqoro oo gacanta raacraacayo qalinka. videoska qaar waan kusoo habeeyay, kolley haddaad ku xiran tahay kanaalka waad aragtay. applicationka aan ku habeeyay waxaa la yiraahdaa Expandio, waa window app waaye. haddaba adiga sanad guuro wacan baa ku leeyahay. toolska aan isticmaalayay waxaa soo geli karo kaamirooyinka. xaqiiqdii badanaa waxaa isticmaalayay telefoonka hadda i horyaala ee aan ku duubanayo. kolley telefoonkaas waad dareemi kartaa muuqaalka aad aragto waa telefoonka duubaayo, muuqaalo badanna lagu soo duubay. sidoo kaleeto waxaan isticmaalaa markii mararka qaar, inkastoo aan telefoonka ka jeclahay camera Canon 70D 70D af Soomaali haddaan kugu sheego. wallaahi technicianka maaragta videoska aan isticmaalayay waxay u badnaayeen adigu qaabab kala duwan bay ahaayeen. waxaa ugu horeyso in maaragtay aan maaragtay saan idiin soo hor fadhiisto caadi aan saan warka idinkugu dhameeyo. sidoo kaleeto qaabka aad u taqaanaan reaction ama adi video in maaragtay qaybta hoose laga soo muujiyo oo videogaas ficil lagu darsado. reaction waxaa la yiraahdaa wax dhacay maaragtay in ficil lagu darsado, dareenkaaga aan ku darsid dib action aan u sameysid. adigu se ahaataba muuqaalada aan sameynaya waxaa kamid ahayd video aan maaragtay codkayga aan soo dul saaro haba ugu weynaado muuqaalkeeni dadkii mucjisooyinka lahaa kaas uu gaaray 200,000 oo view. muuqaalkaas aad baan u jeclaystay sidee dadkiinan ba aad u jeclaysateen. sidoo kaleeto waxaa xusid mudan inaan sameynayay video sidii vlog oo kaleeta dhaqdhaqaaq adigoo socod ama magaalada inaan galay xeebta aan aado. adigu se ahaataba farsamooyinka oo dhan baa wax u duubayay. xaqiiqdii waan jeclahay maaragtay inaan idinla wadaago maaragtay tutorial cashiro baa la yiraahdaa tutorial cashiro oo maaragtay videogaas sida loo edit gareynayo, softwaradaas sida loo isticmaalayo, sidoo kaleeto ama qaabka wax loo duubayo oo kaleeto waan wada jeclaa maaragtay inaynu wada wadaagno. waana samayn doonaa sida ab waliba iyo qaabka loo isticmaalayo editingkiisa.
adigu dad baa kula yaabayo duubista haddaa ka hadashid. Duubistu waa muhiim. Duubista haddaa duubista markii basic-ga ku ciyaarta haddaa duubista aadan sixin haddaba lama moodayo videogan maaragtay in telephone lagu duubayo. dadku badanaa waxay yaqaaniin hadiiba video la duubayo telefoonka oo qoto masaas live in la soo galo saas waa laga qurux badan yahay in sidaas oo kale loo duubo telefoonka inaad seexiso jiifkiisa asaas ugu duubtaa ka qurux badan. hadda sababtoo videoga hadhow markii la edit gareynayo wuxuu rabaa maaragtay inuu buuxiyo shaashada maaragtay meesha wax ku edit gareynayso computerka ama telefoonka baad ku edit gareynayso. laakiin markuu dhudhuub yahay xoogaa dhudhuub haddaa kala jiididna waa la kala jiidaaya haddaa kala jiididna macnaha qofkii wuxuu noqonayaa koos adiga xajmi aadan lahayn ka soo baxaysaan balbalaad kama dhahan. adigu waxyaabahii aan ka faa'iiday halkaas sano waxa aan ka xusi kara waxay tahay in maaragtay asxaab aan ka faa'iiday oo dad aan ka bartay YouTube-ka dad isoo xiriiriyay sababtoo haddii aad wax fahmayso ama waa fahansan tahay waxaa jirto qofka meel maaragtay YouTuber-ka wax warkiisa ku cadeeyo about-ka meesha la yiraahdo number iyo email-kaaga iyo waxaas information-kaaga inaad dadku u reebtid meel kaaga soo xiriiraan ama Instagram-kaaga iyo Facebook-kaaga iyo halkaa baan ku reebay asxaab badan waa isoo feedback bay ii noqotay dad inay isoo xiriiriyaan wanaag ii soo xiriiriyaan ay igu soo xiriiriyaan videos-kan aan sameeyo. waxyaabihii aan ka faa'iiday waxaa ka mid xaqiiqdii maaragtay in aan dad hor fadhiisto saan waa idin hor fadhiyaa sax inaan dad hor fadhiisto microphone qabsado u sheekeeyo aan fikradeyda ka gado. bilxaqiiqa anigu waxa ay dadka aad ugu adkeed ama ahay dadka aad ugu soo ma jiraan rag iyo dumar soo isku ma jiraan dad macnaa dad inta hor istaagaan ka cabsanaya xoogaa adiga cabsi ilaahay baa iska leh xoogaa xishood macnaa adigu public speaking dad ay ku adag tahay xaaladda waan ahaa jiray maanta laakiin waa idin hor fadhiyaa soo ma awoodo inaan maaragtay idinku guro waxa ahay say ahaataba adiga waxyaabihii aan ka faa'iiday lama soo koobi karo hal iyo laba waay ma dhihi karo laakiin sanadkaas adigu muuqaalkan oo kaleeto waxaa la yiraahdaa waxaan ku wadaagaynaa xogta sanadkaas oo dhaafnay oo dhan. waxaan rajeynayaa maanta maalinkeeda kale 26 July 26 luuliyada dambe ee 2020 2020 yani in maaragtay xog kasii balaaran inaan wadaagi doono bidnillaahi alculaa. maanta kanaalka wuxuu marayaa meel dhexe ma dhihi karo meel hoose oo marayaa sidoo kalena ma dhihi karo meesha ugu sareyso marayaa adigu wuxuu marayaa meel dhexe. ku faraxsanahay maanta 8,000 iyo ka badan wax ku dhow 10,000 maaragtay in aan ku qanciyay fikirkayga codkayga facekayga inaan ku qanciyay aan ku qanacdeen aan ku subscribe garaysateen way farxad gelinaysaa. waxaan rajeynayaa intaa iyo in kasii badanba maaragtay in aan meeshaan ku wadaagno afkaariyaad barnaamijyo diini barnaamijyo kaleeto sidoo kale teknolojiyadda waxaan rajeynayaa next year waa sanadka dambe adigoo intaan ku taban jibaarma ama ka badan inaan idinla wadaago xogta sanadka 2019 ilaa 2020 duu ilaahay idmo biidnillaahi alculaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.